الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إلهي بمهد له waxaan ku faraxsanahay caawa inaan u yeedho saxaafada sharafta leh ee karaamada leh ujeedadan ugu yeedhana ay tahay to aniga iga timid oo iga go'an caawa taariikhdu waxay tahay 23 bishii 2022 waxaan halkan ka cadeynayaa anigoo ah Mustafa Cabdiraxmaan Muumin inaan xilkii aan ka hayay xisbiga wicid ee xogayaha guud ee qaaradda Yurub inaan iska xasilay inaan xubinnimadii xisbiga wicidna aan iska xasilay duruufo jira awgood oo aan halkan ka sheegin baan iska xasilay saas darteed waxaan bulshada aan jecelahay inaan ay la wadaagaan anaan la wadaago inaan xilka ka tagin taas waa qodobka labaad waxa weeyaan waxaan u mahad celinayaa gudoomiye Faysal Cali Xuseen oo si sharaf iyo karaamo leh isoo magacaabay oo markii uu horeysay isoo magacaabay gudoomiyaha xisbiga wicid ee laanta Germany mar labaadkiina iga dalacsiiyay oo qaaradda Yurub iyo dalacsiiyay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay waan ku hayaa abaalka waad ku mahadsan tahay ujeedada aan halkan u soo joogsadeen isku xasilayna waa to aynu labadeenu isla ogeyn to kala maaha shacabka reer Somaliland ee aan inta badan soo wada shaqeynayna waan uga mahad celinayaa xisbiyaduna waa hanti qaran saastarteed waxa kale oo mahad celinayaa dhammaan mas'uuliyiintii la soo shaqeysay aad baad u mahadsantihiin waxaan doonayaa iyadana inaan halkan ka saxo habeen dhaweed oo aan joogay xafladii caleemasaarka gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Jarmalka Maxamed Ibrahim Bulaale erey aan idhi oo ahaa waxaan ahaa gudoomiyihii xisbiga wicid runtii bay ahayd laakiin dhalinyar baa jarjaray oo mas'uulkii xisbiga wicid u diray Sugule Maxamed Sugule anigu meel publica ayaan kuma taqaanaa Sugule aan xilka ugu wareejiyay xisbiga wicid ee laanta Germany laakiin dhalinyartaasi waxaan maleynayaa waqtigu iska jira dhalinyar iska bilaa camala oo kulay dhibaato ka raadinaysa inay ahayd mas'uulkaana halkan mar kale waxaan uga cadeynayaa inuu raali gelin aan ka siino aan ka bixino haddii wax qaladi soo gaareen inkastoo inay soo gaadhinba laakiin kulay dad iska dhibaato badan baa iska jira dadkuna isku wada mid maaha isku wada hal maaha saastarteed mas'uul adiguna raali lahow mar kale iyo hawl kale ayaynu diyaar galoobi doonaa insha Allah taala waxaynu hortaala arrimo fara badan oo ay ka mid tahay arrimihii abaaraha waxaynu hortaala arrimihii jaaliyadda cusub dardargelinteedii waxaynu hortaala reer Somaliland Germany inaynu hawlo badan iska garabsano taasna qayb bay ka tahay kulay inaynu isaga soo noqono oo isku nimaadno laakiin muhiimadda caawa ay daaran tahay waa inta hore ee aan hore u soo sheegay ku soo xusay aad iyo aad baad u mahadsantiin dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh